cudurada waxay ku badan yihiin haweenka daada dhaxaadka dumarka Soomaaliyeed iyana aad ayuu ugu badan yahay. Qanjirka thyroidka wuxuu ku wareegsan yahay qeybaha kore ee hunguriga cad wuxuu leeyahay qaabka balanbaaliska oo kale sida aad shaashada ugu jeedaan. Intaan u gudgelin cudurada ku dhaca waa in isla fahanaa habkay u shaqeeyaan qanjirkan. Guud ahaan qanjiradan waxa xukuma qanjir lagu magacaabo hypothalamus oo ku yaala maskaxda. Qanjirkaas wuxuu soo saarayaa hormoon ama dheecaan loo yaqaano thyroid releasing hormone. Hormoonkaas wuxuu kicinayaa ama amrayaa isla qanjir kale oo ku yaala maskaxda oo lagu magacaabo pituitary gland soo asigan u sii daayo hormoon lagu magacaabo thyroid stimulate hormone. Hormoonku soo daayo wuxuu fariin u dirayaa qanjirka dhuunta oo aan iminka ka hadli rabo cudurada ku dhaca soo hooshiisa u bilaabo oo dhiiga ugu sii daayo hormoono loo yaqaano thyroxine oo T4 loo yaqaano iyo triiodinothionein oo loo yaqaano T3 loo yaqaano. Asagana waa hormoono wax ku ool u leh jirka. Waxay kontrolaan habka loo yaqaano metabolismka oo ah habka burburinta iyo dhisidda nafaqada taasoo jirka u isticmaalo tamar ahaan. Sidoo kale waxay ka shaqeeyaan ama ay kontrolaan shaqooyin dhowr ah sida neefsashada, garaaca wadnaha, miisaanka jirka, awoodda murqaha, heerkulka jirka iyo neerfayaasha maskaxda iyo xangulaha iyo cadadka cholesterolka. Waa maxay ciladaha ku dhici karta marka qanjirkan? Qanjirkan waa cudurada ku dhaca way fara badan yihiin balse kelibkan waxaan ku kala saari doonaa laba cudur oo kala duwan oo ay bulshada inta badan isku qaldaan oo ay ku dhacay qanjirkan ku dhaco. Waxay kala yihiin hypothyroidism iyo hyperthyroidism. haddii aan ku hormarno cudurka koowaad ee loo yaqaano hypothyroidism, qanjirkii dheecaamadii ama hormoonada oo soo deyn jiray ayaa yaraanaya ama maba soo deynayo, shaqadii ayuu gabayaa. Sidoo kale hyperthyroidismka cagsigiisa waaye, qanjirkii wuxuu soo deynayaa dheecaamo ama hormoono aad u tiro badan ayuu dhiigga kusoo darayaa. Marka qofka dhiiggiisa wuu samoobaya, waxaa loo yaqaana thyrotoxicosis ayaa loo yaqaanaa. Marka waa laba cudur oo kala duwan oo isla qanjirka thyroidka ku dhaca. Waxay ku kala duwan yihiin astaamaha ama calaamadaha oo qofka ka soo muuqanayo way ku kala duwan yihiin, waxaas way ku kala duwan yihiin. Sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin daaweyntu way ku kala duwan yihiin. Marka calaamaduhu waxay ku xiran tahay heerka uu marayo cudurkan. Haddii uu xanuunka muddo ku hayay, waxaad dareemaysaa astaamo ka duwan marka uu kugu cusub yahay. Marka haddii aan ku hormarno hypothyroidismka ama qanjirkii aan soo saarin dheecaamadu oo soo saari lahay ama shaqadii oo gabay, qofka marka waxaa ka soo muuqanayo ama isku arkaya calaamado aad u tiro badan. Waxaa ka mid ah marka calaamadahaas in qofka miisaankiisa uu kordho, constipation ama calool fadhi ama calool saxrigiisa soco weyd, yani qofka oo qabow aad adkeysan karin. Sidoo kale qofku wuxuu isku arkayaa garaac wadnihiisa inuu hoos u dhaco ama dhiigga caadada oo ziyaado noqdo oo muddo badan socdo. Sidoo kale wuxuu isku arkayaa qofka wejiga ama daamanka oo barbarara, hurdadiisa oo badatay, caajis fara badan. Sidoo kale wuxuu isku arkayaa qanjirka oo bararay, codkiisa isbedelay ama xabeeb yeeshay. Sidoo kale timihii oo daata ama khafiif noqday ama iloosho oo hore isugu arki jirin ayuu isku arkayaa. Sidoo kale hyperthyroidismka ama kacsanaanta qanjirka ama qanjirkii uu soo daayay hormoono aad u tiro badan, qofka waxaa ka soo muuqanaya astaamahan sida miisaankiisa oo luma. Marka way kala duwan yihiin. Kaas haddii qofka cayilaya, kan miisaankiisa lumaya. Kaas haddii oo qofka calooshiisa ay adeeg ahayd constipation oo hayay, saxridiisa ay adeeg ku adkeen, kan shuban ayaa lagu arkayaa. Kaas haddii qabow oo dhibayo, cudurkan marka kuleelka ayaa dhibaya. Marka waa laba cudur oo cagsi isku ah waay. Marka astaamaha kacsanaanta qanjirka ama hypothyroidismka maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qofka miisaankiisa oo luma, shuban aad u badan in lagu arko. Sidoo kale waxaa lagu arkayaa qofkii oo kuleelka aan u dul qaadan karin, wadna garaaciisa oo zaa'id noqday, dhiigga caadada oo istaaga ama la waaya. Sidoo kale gariir oo gacmaha ayaa lagu arkaa iyo dhidid fara badan ayaa lagu arkaa. Indhihii oo aad moodid inay dibadda usoo baxayaan ama ectophthalmos ayaa lagu arkaa. Hurdadiisoo yaraato, qanjiruhu oo bararay iyo timihii oo khafiif noqday ama daata. Okay, maxaa keena marka ama sababa cuduradan? Marka waxaan ku hormarayaa hypothyroidismka ama qanjirkii hooshiisa gabay oo soo saari waayay hormoonadii uu soo saari jiray. Inta badan waxaa sababa caabuq ku dhaca qanjirka oo dila unugyada soo saari lahay hormoonka. Sidoo kale in qofka jirkiisa ay ku yaraatay maadada hormoonka laga sameynayo ee loo yaqaano iodine, in yani cilad ay ku timid qanjirka loo yaqaano pituitary, in uu daawooyinka hypothyroidismka la siiyo. Qofka wuxuu marka hore waxaa hayay cudurka kacsanaantii ayaa hayay, dhakhtarkii daawooyin fara badan ayuu usoo qoray sida loo dejiyo hormoonadaas
marka daawooyinka ayaa waxay sababayaan marka in hormoonkii oo si xad dhaaf ah hoos ugu dhaco ayay sababi karaan cudurka. marka qofka weji cusub ayuu galayaa. marka hore hypothyroidismka laga daaweynayay wuxuu isku bedelayaa marka hypothyroidism ayuu galayaa ama dheecaamadii oo qanjirka uu soo deynaya ayaa yaraanayo. sababtan waa daawada ayaa sababi karto. sidoo kale in qanjirkii gabi ahaan laga bixiyay inta badan waxaa laga bixiyaa markii uu qofka ay buro ee kaga dhacdo ama in uu qofka uu ku dhasho. haddii aan u gudugalo hypothyroidismka ama kacsanaanta qanjirka ama qanjirkii uu soo daayo hormoono fara badan maxaa sababi karo. wax ugu badan ee keena waa gravity disease. gravity disease cudurkan wuxuu isku qaldayaa habkay u shaqeeyaan hormoonadii saddexda ah sida u shaqeeyaan ayuu ka qaldayaa. marka cudurkan inta badan waa la kala dhaxlaa. wuxuu u badan yahay in dumarka ayuu inta badan u badan yahay. marka sidee lagu ogaan karaa marka cudurkan in uu ku hayo in kale yani cudurkan inta badan marka wax ugu horeeya lagu ogaan karo waa in yani astaamaha qofka ayaa kasoo muuqanaya. haddii uu qofka hypothyroidismka uu hayay astaamihiis ayaa kasoo muuqanaya. haddii uu cudurkan kale hayana hypothyroidismka ama kacsanaanta uu hayana calaamadahan ayaa kasoo muuqanaya qofka. sidoo kale in qofka blood test loo diro oo dhiiggii laga fiiriya hormoonada levelka ay ka joogaan dhiigga ma ku badan yihiin ma ku yar yihiin oo inta laga rawmiyaa dhiigga laga fiirinaya. ama in yani qofka loo sameeyo thyroid scan ama scan in la saaro ama in loo sameeyo qofka radio iodine uptake in loo sameeyo. cudurkan ma la daaweyn karaa oo daawo ma leeyahay? haddii ay jirto xaaladda hypothyroidismka ama qanjirkii aan soo saarin ama uu yaraado hormoonada uu soo saari jiray qofka maalin walba waxaa la siinayaa hal kaniini oo thyroxine loo yaqaano. kaniinigaas wuxuu u dhigmaa marka hormoonka jirkiisa ku yar ama ka maqan ayuu u dhigmaa. ma ahan in cudurkii uu bogsiinayo hormoonkaas bedelkiisa kaniiniga ayaa kugu jiro. marka kaniiniga intaa nooshaha waa qaadanaysaa. waxaa macquul marka in yani qanjirkii uu shaqadiisa dib u bilaabo oo kaniiniga aad ka maarantid ayaa macquul ah. marka haddii aan u gudugalo hypothyroidismka asigana waxaa lagu daaweeyaa kacsanaanta qanjirka ama qanjirkii oo soo saaro hormoono fara badan. asigana waxaa lagu daaweeyaa dawooyin oo lagu yareeyo hormoonada oo aadka loo soo deynayo lagu yareeyo ayaa la siinaa. ama qofka in qaliin lagu sameeya. qaliinka inta badan waxaa loo sameeyaa maamooyinka uur kale oo aan u dul qaadan karin daawooyinta anti thyroidka aan u dul qaadan karin ayaa loo sameeyaa. sidoo kale in qofka loo sameeyo radio active iodine in loo sameeyo iyana way dhacdaa waa lagu daweeyaa. marka intaas iyana kusoo gabagabeynaya.